gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Garyaqaan Baashi Yuusuf Axmed ayaa digniin u diray hay'adaha dowladda, laamaha amniga iyo dowladda hoose ee dalka taasi oo ah in ay ciqaab ka dhalan karto fulin la'aanta xukunnada ka soo baxa maxkamadaha dalka. Waxa uu sheegay in mar walba la arko go'aano maamul oo maxkamadda sare ka soo baxo ama go'aan dacwadda shaqaale oo soo baxa in hay'adaha go'aankaasi uu ku socdo aysan fulin. Waxa uu ka dalbaday hay'adaha dowladda in ay go'aan kasta oo maxkamadda dalka ka soo baxa uu waajib ku yahay in ay fuliso, haddii kale uu ka dhalan karo faldambiyeed sababi karo xarig ama ganaax. Haddii go'aanka maxkamadda aysan fulin, hay'adda dadka xukunsanayaasha ah waxaa ku xisaabtamaya in ay yihiin dad sharciga ka sarreeya oo aan waxba lagu fulin karin, ayuu yiri gudoomiyaha maxkamadda sare. Ugu dambeyn, gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Garyaqaan Baashi Yuusuf Axmed ayaa sheegay in ciidamada booliska ay waajib ku tahay inay fuliyaan go'aanada ka soo baxa maxkamadaha dalka, isla markaana lagula xisaabtami doono sarkaal walba oo ka tirsan ciidanka. aynu inteen halkan fadhideenta inaga maqan xilkaasi isa saarno aynu waajibaadka iyo mas'uuliyadda aynu qaadano waxaynu soo celin karnaa Soomaaliyada aynu rabno inaynu helo waa Soomaaliya oo sharcigu shaqeeyo. Soomaaliya waxa ugu sareeya uu yahay sharciga. Soomaaliya sharciga la isku xukumo. Soomaaliya qof walba oo sharciga wuxuu u hoggaansan yahay, waayo garsooraha degmada fadhiya wuxuu amarkiisu ka fuli karaa meel kasta oo dalka. wuxuu amri karaa qof kasta oo dalkan ku nool darajo kasta oo uu leeyahay. cid kale oo awood leh ma jirto. wuxuu awood u leeyahay inuu xidho qof kasta. wuxuu awood leeyahay qof hanti haysta inuu ka qaado qof kale ku wareejiyo. wuxuu awood u leeyahay qof inuu ku xukumo nafta laga qaado. wuxuu awood u leeyahay qof inuu xukumo xorriyadiisa laga qaado xabsi daayin ama 10 sano ku qaato. cid kale oo awood leh oo garsoore aan ahayn ma jirto. Maxamed Abuukar, Gobonimo TV, Muqdisho.